marka nabigeena suban calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku yidhi isagoo kaga hadlaya bisha ramadaan fadliga ay leedahay ataakum ramadaanu shahrun mubaarakun. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ramadaankiibaa idiin yimid, ramadaankuna waa shahrun mubaarakun, waa bil ilaahay uu barakeeyey. farada allaahu calaykum siyaamah, ilaahay wuxuu idinku waajibiyey soomkiisuu ilaahay idinku waajibiyey. oo bishaan ramadaan qof kastoo muslima oo mukallaf ah oo mudiiq ah oo haddana weliba ka daahira xayd iyo nifaas ka daahira, bishaan ramadaan inuu sooma ayaa ku waajibi. hadduusan qofku muslim ahayn dee waxyaabo kale ayaa isaga laga doonayaa oo islaamka inuu galo oo tawxiidka uu la yimaado muslim uu noqdo ayaa isaga laga doonayaa.